Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wanaagsan meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii horumarinta nafta. Barnaamijkeenan oo ka daawataan shabakada haqabeer.com waxaan idinla socodsiiyaa anigoo ah Faad Cabdirashiid Aadan. Barnaamijkeenan maanta qodobka aynu ku soo qaadanayno ayaa ah qodob aad runtii aan filayo inaad aad uga heli doontaan. Qodobkaasi oo ah sideed ku noqon kartaa qof farxad badan. daawadayaal qof kasta oo dunidan ku dul nool wuxuu raadiyaa ama uu jecel yahay inuu noqdo mar walba qof farxad badan. Haddaba farxaddu waxay leedahay muhiimad aad u fara badan. Farxaddu waxay firfircooni gelisaa nafta, waxay siisaa karti aad u fara badan, waxayna qiimo u yeeshaa nolosha qofka. Marka maadaama ay muhiimadda intaa leedahay farxaddu, sidee baynu ku noqon karnaa qof mar walba faraxsan? daawadayaal si aad u noqoto qof mar walba farxad badan, ugu horeyn farxadda aad raadinaysa waxaad ogaataa inay ku jirto cibaadada. waa inaad ogaataa inay ku jirto xuska Ilaahay iyo dhikriga Ilaahay. qofka mar walba cibaadeysta ee Ilaahay ku xidhani waxa hubaal ah inuu mar walba farxad heli doono. daawadayaal qodobka kale ee aadka muhiimka u ah ayaa wuxuu yahay inaan dadka isbarbar dhigin. nin la oran jiray Leo Tolstoy oo kamid ahaa filosofiyadii dunida soo martay ayaa wuxuu yiri haddii aad adiga noqoto oo aanad isku dhararin ama la tartamin cid kale, waxa hubaal ah inaad qof walba tixgelin ka heli doonto. marka cidnaba ha isbarbar dhigin, ha odhanin hebel baa ka wanaagsan, ha odhanin waxa fiicnaan lahayd inaad gaadhid halku hebel gaadhay ama heblaaya gaadhay. mar walba waa inaad naftaada ku kalsoon tahay, ku qanacsan tahay, waa inaad ku qanacsan tahay shaqadaada, waa inaad ku qanacsan tahay muuqaalkaaga, waa inaad ku qanacsan tahay gurigaaga. waxa kale oo muhiim ah daawadayaal inaad ku qanacsanaato ehelkaaga ama nasabkaaga iyo halkaad ka soo jeedo. haddii aad adigu isku qanacsan tahay oo naftaada ku qanacsan tahay, waxa hubaal ah inaad mar walba deganaansho iyo farxad ku noolaanayso. daawadayaal qodobka kale aadka muhiimka u ah ayaa wuxuu yahay inaad hoos u eegto waxaad haysato. waa inaad Ilaahay ugu mahadnaqdo caafimaadka ku siiyay, waa inaad Ilaahay ugu mahadnaqdo lixda lixaad ee ku dhameystiray, waa inaad Ilaahay ugu mahadnaqdo mar walba risqiga iyo arsaaqda aad hesho. haddii uu lixaadkaagu kala dhiman yahay, waxaad ogaataa inay jiraan oo adduunkan ku nool yihiin dadkaasi liita. waa inaad mar walba Ilaahay ugu mahadnaqdo waxa uu ku siiyay. noloshuna waxaad ogaataa inaanay ku khasbanayn inayna siiso wax kasta oo aynu doonayno. haddii aad taasi iska dhaadhiciso naftaada u sheegto, waxa hubaal ah inaad dareemaysid deganaansho fara badan iyo farxad aan la soo koobi karin oo aad u fara badan. daawadayaal waxa kale oo muhiim ah inaad mar walba aad filato rajo fiican. haddii aad mar walba filato wax wanaagsan ama rajo fiican aad filato hawl kastood qabanayso, waxa hubaal ah inaad farxad aad u fara badan heli doonto. noloshuna haddii rajo weydo ama rajada aad rajaynaysa ay wanaagsanaan weydo ama ay fiicnaan weydo, waxa hubaal ah inay noloshaadu noqonayso sida shimbir baalku ka go'ay. marka mal walba waa inaad hagaajisaa rajadaada oo aad filataa wax wanaagsan. daawadayaal qodobka kale aadka muhiimka u ah ayaa wuxuu yahay haddii aad dhamaystirnaan raadiso, naftaadu abidkeed raali noqon mayso. taa macnaheedu wuxuu yahay haddii aad shay aad doonaysay aad heshay, waxa hubaal ah inaad shay kale dooni doonto oo aanay naftu weligeed aanay maarmin ama qancin, oonay shay kaliya ku qancin ee mar walba baahidu taagan tahay. marka mar walba waa inaad ku qanacdo waxaad haysato. daawadayaal qodobka xiga ayaa wuxuu yahay inaad dadka wanaajiso oo aad caawiso. haddii aad qof walaalkaaya oo muslina aad caawiso, waxaad dareemaysaa farxad aad u fara badan, waayo qof ayaad habi ka dhigtay, isla markaasina aad ku caawisay wuxuu doonayo oo aad awood u leedahay inaad ku caawiso. marka in bulshada dhexdeedu is caawisana diinteenuna way dhiirigelisay oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa intuu qofku gacanta fidinayo oo qof walaalkiisa wax u dhiibayo, isagana Ilaahay baa gacanta u fidinaya. marka waxaad arkaysaa halkay diinteenuna dhigtay in bulshada dhexdeedu ay is caawiso. marka mar walba waa inaad wanaajisaa dadka,
waa inaad walaalkaaga baahan aad caawisaa si aad adiguna u dareento happy iyo farxad iyo deganaansho. markaa mar walba ku dadaal caawinta dadka. daawadayaal, qodobka kale ee aadka muhiimka u ah ayaa wuxuu yahay inaad iska ilowdo dhibaatooyinkii hore kugu dhacay. haddii qofku uu ka fikiro mar walba dhibaato hore ugu dhacday oo uu dib u xasuusto oo uu ku fikiro, waxaa hubaala inay farxadiisu halkaasi ku lumayso. markaa mar walba waxaad ku fikirtaa ood xasuusataa guulihii aad gaadhay. mar walba waxaad maskaxdaada ku soo celcelisaa waqtigii aad faraxsanayd. mar walba waxaad ku fikirtaa ood xusuusataa wax wanaagsan. taasina waxay kuu saamaxaysaa inaad mar walba aad noqoto qof farxad badan. daawadayaal, qodobka xiga ayaa wuxuu yahay waa inaad naftaada ka nadiifisaa xasadka iyo xiqdiga. haddii aad dadka xaasidid, waxaad ogaataa inaad weligaa deganaanshiyo helayn, inaad weligaa farxi doonin. waayo mar kasta ood aragto qof guulaysanaya, haddii aad ka xumaato, waxaad dhibaato u soo jiidaysaa naftaada. oo mar walba waxaad ka xanaaqaysaa ama ka cadhoonaysaa ama ka xumaanaysaa qof kale guul uu gaadhay. adduunkana lagama waayo qof guulaysta. markuu saaxiibkaa guulaysto, haddii aad la faraxdood u hambalyayso, waxaa hubaalaya adiguna markaad faraxsan tahay inuu kula farxayo. markaa mar walba waa inaad iska ilaalisaa xasadka iyo xiqdiga si aad naftaadu ay u hesho deganaansho iyo farxad aan la soo koobi karin. daawadayaal, waxa kale oo ka qayb qaata farxadda ama inuu qofku dareemo farxad deegaanka uu qofku ku nool yahay. haddii aad nidaamiso howlahaaga oo aad waqti u kala samayso oo ay ku nidaamsan yihiin, oo aad nadiifiso maryahaaga iyo jidhkaaga, oo aad gurigaaga hagaajiso oo xafiiskaagu ku habaysan yahay, waxa hubaala inaad dareemayso deganaansho iyo farxad aad u fara badan. markaa mar walba waa inaad nidaamisaa howlahaaga, maryahaaga, gurigaaga iyo weliba xafiiskaaga. waxaanad ogaataa qaamuuska farxaddu iyo deganaanshuhu inuu ku yimaado kelmad keliyata. kelmaddaasi oo ah raalli ahaanshaha. haddii aad naftaada raalli ka noqoto mar walba, waxaa hubaal ah inaad heli doonto farxad aad u fara badan. barnaamijkeeni maantana waxaan jeclahay inaan intaasi kusoo gabagabeeyo. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Faad Cabdirashiid Aadan. dhinaca kamaraduna waa injineer Maxamed Cabdilaahi Maadey. intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno, waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.